السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay taariikhduna waa 22 Abriil sanadka 2026. barnaamijka waxaynu ku faahfaahin doonaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn. haddaba waxaynu barnaamijka ku bilaabaynaa Iiraan oo sheegtay 2 markab inay nab soo tiri oo kuwa ganacsiga oo mid Israa'iil leedahay meel ku dhow ayay ka soo qabteen Hormuz, mid saddexaadna faracidile ayuu uga baxsaday. haddaba sidee wax u socdaan xaalku waa sidee iyadoo Mareykankuna ay sheegeen inay 2 markab oo Iiraan leeyihiin ay haystaan. haddaba maraakiibtan la qabtay iyo meesha la geeyay iyo magacyadooda iyo shirkadihii iska lahaa ayaa faahfaahin laga qoray. haddaba telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegay inay qabsadeen 2 markab oo Hormuz marayay, mid kamidana waxaa lala xiriirinayaa Israa'iil. haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa Arbacada maanta waxay sheegeen inay qabsadeen 2 markab oo markaa ay geeyeen xeebaha Iiraan ayay u kaxaysteen, waxaana la sheegay in mid kamid ah lala xiriirinayo Israa'iil. haddaba maraakiibtan ayaa waxaa la sheegay in ay ahaayeen kuwo ganacsi sida warbaahinta Iiraan ay sheegayaan. wakaaladda wararka ee Tasniim oo iyadu taageerta ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegaysa in ciidamada badda Iiraan ay qabteen 2 markab oo markaa watay magaca MSC Faransiiska iyo AB Mandus, waxayna u kaxaysteen dhanka dekedaha Iiraan. waxaana la sheegay inay ahaayeen 2 markab oo xadgudub ku sameeyay kura tuntay waxa ay ku tilmaantay Iiraan qaabkii iyo hanaankii ay ku soo rogtay Hormuz. haddaba ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegay inay mid kale oo saddexaad iyana weerar ku qaadeen. marka sheekadanu marka xabad joojin way jirtaa, laakiin dagaal kala ka socda Hormuz. dagaalkan kii xabadda la isku ridayay iyo kii gantaalka la isku ridayay karaaba ka halis badan. ganacsigii oo dhan la kala afduubanaya, maraakiibtii la qabsanaya. Mareykanka bilaabay, Trump ayaa hawsha bilaabay. waliba Trump waxay sheegeen kooxdiisu inay xataa maraakiibta Iiraan hadday ku arkaan badaha caalamka meel Mareykanku saldhig ku leeyahay ay nab dhihi doonaan. macnaha meel walba saldhigyo ku leeyahay Mareykanka caalamka Soomaa meelo badan, meelahaas hadday soo maraan maraakiibta Iiraan waa qabsanayna wali. bariga dhexe kaliya kuma koobnaaneen. Iiraan iyaduna waxay eeriyada ka agna soo dhawaada nabay leedahay. hadda 2 geysatay meesheeda dekedeeda geys. mid waxaa iska lahayd Israa'iil leeyahay oo xiriir la lahaa Israa'iil sida ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ay sheegayaan. midda kalena wali faahfaahin badan lagama soo saarin oo lagama bixinin. marka xaalku marka waxa leeyahay halistu way sii xoogaysanaysaa, xaaladdu farahay ka sii baxaysaa marba marka ka dambaysa. marka warkaasu oo maanta ayuu dhacay. kullay tafaasiishiisa iyo wararkiisa kale barnaamijyada kale ku soo qaadan doonaa haddii la soo saaro, haddii alla idmo. rajo ayaa laga qabaa ay leedahay Pakistan in maalinta Jimcaha ay fooda nagu soo haysa wada hadallada mar kale la isugu yimaado. Pakistan wali way dadaalaysaa sidii ay mar kale miiska wada xaajoodka isugu keeni lahayd Iiraan iyo Mareykanka. marka waxay leedahay hadda waxba noo soo dhawaaday, berito aan dhamaystirayna Jimcaha waxaa laga yaabaa in halka wada hadalladu ay ka dhacaan. waa haddii suuro gasho waa haddii, laakiin meeshan wali xaalku waa adag yahay. haddaba aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay. wargeyska New York Post la yiraahdo ayaa laga soo xigtay wareegga labaad ee wada hadallada Mareykanka iyo Iiraan in markaa ay dhici karto maalinta Jimcaha. haddaba journalka la yiraahdo New York Post ee dalka Mareykanka ayaa wuxuu soo xiganayaa mas'uuliyiin reer Pakistan iyagoo sheegay inay markaa rajo ka qabaan oo ay suuragal tahay Jimcaha soo socda in markaa wada hadalladaasu inay furmaan. wada hadallada shalay ilaa doraad iyo Pakistan aad ay uga shaqeynayso.
laakiin waxba waa u hagaagi waayeen maraykan diyaara ahay uu leeyahay laakiin xujooyinkiisuu wataa iiraanna waxay leedahay adeero xujooyinkaas bannaanka iska soo dhigay miiska aan ku wada hadalna imow marka sheekadaasu halkaasay maraysaa dhanka kale warbaahinta maraykanka qaarkood waxay ka hadlayaan in iiraan dhexdeeda khilaaf uu jiro militariga iyo nimankan siyaasiyiinta ah ee wadahadalka loo soo diri lahaa way ku kala duwayn militarigu waxay leeyihiin saan haddaan la samaynayn xabadaan ka haynaa nimankan wadahadalkana waxay leeyihiinaa layidhi war xoogaa aan horta wadahadalka furno dagaalkay waxa kan yaynaan ku degdegin xaalka aan dejino waxaasoo dhan marka waxaa samaynaa waa warbaahinta maraykanka waxay leeyihin mas-uul maraykana laga soo xigtay mas-uul maraykan gudaha iiraan waxaa ka socda maxaa ka galay marka sheekadaas iyaduna halkaasay baraysaa xalay si lama filaana ayuu trump ugu dhawaaqay keligiis xabad joojintii inuu muddadeedii kordhiyey laakiin wakhti saxa ma sheegin waa taa xalay barnaamijka degdega ahaa iyo wuxuu dhan kaga hadlaynay wakhti saxa oo isagu uu sheegay ma jiro iiraan marka waxay leedahay yaa la gaadaa adeero annaga maba ku aaminaynaba ninkanna wakhti ma sheegin xabad joojintii waa kordhiyey macnaha wakhtigii ku ekeed waa ka kordhiyey maalinaa kordhisay ma labaa kordhisay ma saddexaa kordhisay ma shanaa kordhisay ma toddobaadaa kordhisay ma laba wiigaa kordhisay waxba ma sheegaayo warbaahintii marka waxay raadiyeen ninkan waxa uu kordhiyey maxay ragga u dhow mas-uuliyiinta maraykanka wari ninka yaa xiriir la leh yaa xogta laga heli karaa ninkan ma hal maalinoo ku daray ma labow ku daray hala soo ogaado haddaba marka wararkii ugu dambeeyey mas-uuliyiin maraykana ayaa waxay u sheegeen hay-adda wararka ee la yidhaahdo axios ee dalka maraykanka laga leeyahay in wakhtiga trump uu qabtay ay markaa ugu badnaan ay tahay 5 maalmood warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay axios waxay leedahay mas-uuliyiin maraykana ayaa arbacada maanta waxay noo sheegeen in donald trump uu muddada uu dheereeyay xabad joojinta ay u dhaxayso 3 ilaa 5 maalmood marka waxay leeyihiin 3 ilaa 5 maalmood ka badan maaha weli laftirkoodu wakhti saxa ma hayaane ogow meesha ninkan meequu ku daray xabad joojid wa intaasuu ku daray ma qof dhihi kara male laftirkoodu qiyaasay wadaan marka waxay leeyihiin 3 ilaa 5 aan u malaynaynaa ka badan ma jirto laakiin qof og male odagana wuu ugu talagalay waa oday aan caadi ahayn oo ciyaal suuqa waaye oo aan caadi ahayn waxaan in lagu wareeruu rabaa oo dadku ay mushkilad ku noqoto marka odagan oday caadiya maaha marka sheekadaasu marka iyaduna wararkii soo kordhay ayay ka mid tahay saacadihii lasoo dhaafay waayahay marka arrin kaloo muhiima warkeenna ku jirta maanta oo aad cajiib u ah maxay tahay nin brofessora oo weyn oo dadka aadka looga qiimeeyo maraykanka ah ayaa hadal weyn sii daayay maalin hore hadalkaas ilaa maanta waa socdaa ninkan wuxuu yidhi iiraan haddii ay sii haysato hormus waxay noqon dowladda afaraad ee adduunka ugu awoodo badan adinka warkii hore waa soo dhaaf yaa adduunka ka horey maraykan iyo ruush iyo chines bas number 4 ay soo galaydeen ingiriisaa lay dhahaa iyo faransiisaa lay dhahaa iyo turkiya lay dhahaa iyo israa'iila lay dhahaa iyo waxaasoo dhan suuqay galayaan u yidhi nimankan alquwa raabica waayu yidhi awoodda afaraad waayu yidhi awooddii koobaadee beerka ka tumeen uu yidhi ay meeshaa ma soo mari kartid dheheen marka ayagii marka awooddii afaraad ay soo galeen uu yidhi hadeer waxa keliyoo la dheer yahayna waa tira badnida nuclearkan iyo ciidankan oo laga badan yahay iyo baaxadda maaragtay dadka dalalkaas oo dadkan ka badan iyo waxaas waa bis laakiin wixii kaloo adduunka afkay u dhigat carab iskaba dhaafort yurub ay cunaysaa lagu leeyahay yurub waa laqaysaa ninka professorka warkiisa marka waxaa leeyahay warkaasu war macquul oo ay aadaan oo loo hadalayaa haddaba markaan idintuso telefishinka aljazeera ayaa soo qaatay
بروفيسور مريكنا أيولياي وحويري إيران وحي نقون دونتا القوة الرابعة أما أود أفراد عالمك هدي أي هيستو أو معناها سي هيستو هرمس هذا مركا وربحين توسي سعوتي وحلياي نكن بروفيسور كان مريكان كوحل هذا مجلس روبرت بي هذا مركا وانا بروفيسور دنكا معلن علوم السياسة وحو وحكدغا جامعة ليرادو شيكاغو ودنكاسي مريكانك wuxuu sheegay awoodda Iran hadda inay noqoto mid aan la dhayalsan karin waxay ka hor timid Mareykanka marka haddii sidan ay hawshu ku socotana alquwwatu arrabi'a ay noqonaysaa awoodda afraad ee adduunka macnaha Ilaahay baa awood leh laakiin awoodaha la qiimeeyo number 4 waayo nimankaasu marka niman aan caadi ahayn waayo